السلام عليكم asxaabta maalin wanaagsan ku soo dhawaada ciyaaraha waxaan soo qaadan doonaa warbixinada ugu dambeeyay kubadda cagta ay ku jiraan arrimaha ku aadan maxaa laga yiri Real Madrid iyo Liverpool oo habeenka ciyaaraya waxaan eegi doonaa warbixinada ugu dambeeyay Arsenal iyo balaayada haysta cidii waka baalidu aan lahayd war Arsenal ay iska daaya goor hadda baaldegina buuq inaad qabtiyaan waa la ogyahay buuq iyo balaaye iyo cuquba meelaha idinka soo gasho waa la yaqaanaa waxaan eegi doonaa sidoo kale arrimaha ugu dambeeyay xalka Lamine Yamal Palmer kala iibsiga Manchester iyo kuwa kale صاحبي الله محمدو سبسكرايب كنا صار كوي جالك سؤال قرقو جري شيرتي ولكن نسكدر كان صاحب كلا عيار وجعل بالبرنامج كانوا قارسينا وين سلام ستة مغار كيبان ايجي دونا ماليون اكسنا صحاب تاي برنامج كانوا حقادنا كاملات بروتين كليسان وحيبا عاونيا عافيمات كخوفكا سيدا فيتامين سكيو مينرالكا سيدو كل واحد كليسان بروتين نوعيد كلا دوان بالكلا حرة تليفونودا شاشة ديك موقنية بل عياره بان ايجي دونا رنتي وهبين عياريد وين كل عيارو دون وحا اي سو ودا غليا دنبه كل ارسنال بالله عمامدي او وقتي هore ciyaartida la keenay laakiin ciyaaraha kale oo dhan wax weeyaan caawa waxay jiraan 5 saac habeenimo ama 12 habeenimo min Atletico min Juventus min Real min PSG min Tottenham Arsenal baa soo gali doonta saacadu markay tahay 9 habeenimo oo ruubi marka cidu caawa wallahi cimaamadayayo waqti hore ayaa ciyaartoodii la keenay marka Liverpool iyo Real Madrid PSG iyo Bayern Munich waa ciyaaraha ugu adag ee caawa dhacaya laakiin the Gunners oo horay Slavia 3 ciyaarood ula ciyaartay hal jeer un bay ka badisay runtii Martinelli baan ciyaartan joogin kaas 3 ciyaarood Champions League season kan shabaq wada gaarayay the Gunners ka kaliya ee Arsenal u soo ciyaaray ee 4 ciyaar ku xigta ka dhaliya gool tartan Yurub wuxuu ahaa ninka Ian Wright la yiraahdo hadda Arsenal taageero weyn u ah oo dabaaldega ciyaaraha qaar xataa xamaasadu ay qaado waana falanqeeyo ciyaaraha weeyaan runtii midda kale wax weeyaan Arsenal ilaa hadda waxa weeyaan waa bir Saudi Maxtabe Guardiola baa ka qayl wuxuu yiri nimanku maalin uun arki doona iyaga gool laga dhaliyo yani way adag tahay Arsenal in gool laga dhaliyo waxay hadda Champions League siisa ka yihiin inay wada badiyaan dhammaan 3 ciyaarood ee Champions League iyagoo aan xitaa shabaqooda marna la gaarin midaan sameeyay markoodii ugu horeysay tan iyo 2005 iyo 6 inay wada badiyaan dhammaan 4 ciyaar ugu horeeyay Champions League kooxdii ugu dambeysay Ingiriis ee midaas sameysay waxay ahayd oo 4 ciyaar ugu horeeyay tartanka Yurub aan gool laga dhalin waxay Leeds 69kii iyo 70kii Arsenal ciyaarta waxa ka maqnaan doona Victor Gyökeres iska daa ciyaartan xitaa ciyaarta Sunderland ayuu ka maqnaanayaa baa la tilmaamayaa ninkan Gyökeres oo Arsenal dhaawacyo dhinacyada ka soo galaya Arteta Saudi wuxuu sheegay ninkan in uu mari doono scan marka Arsenal وتمالود لهين ورسك جرا قرر دبالدقين نمان يهو أرسنال بقى اسكتين عقوبة يبلايات قبطان ومالح بيحد كسو قليان إن كستو سعود من أركي جون أوبي ميكيل لاعب كورة قاعدة جلسوا عيري هدي أرسنال ريال كان قادي ويسوير وكقع محايل وحور اسكت ده صفقة أول في عبرنيق إنه يهيني حتى صفقة أول ما أرسنال يورو لقى مهري يورو معاه صفقة هرو عياري كيت كأيلين بور سنة كان يا مركا يوغرس وحوشي توبرو إنه حتى توبران عيار سلافيا عن عياري دولين سكان لمرسين دونو سندرن حتى عيارتي شكيا كجرا أرسنال مركا dhaawacay baa siiska iska haya Martin Odegaard Maduki Jesus Havertz Subamendi Keba iminkuna Gyökeres marka si ahana cidi marka la idin dhahayo waxa weeyaan idinka Arsenal la iska tiine jooga dabaaldega goorha sameyn marka la waxa weeyaan waxa soo kala iska jira meel wax idinka soo galaya markaad wax isku kiitoosiin laakiin wali kii dheera aw Spain-na weeriyaan loo yahay kan Merina joogo ninkaas oo weynka ah ninkaas inuu hawsha qaban doono la arkaya ayaantaano still waxaad arkaysaa wali maashi in la sii jacburin karo yaad arkaysaa kulay taa wata dhinac kale waxa weeyaan Madrid iyo Liverpool ayaa ciyaar kale xiisab badan caawa ah wala ciyaar baa halka taala waxa weeyaan 3 Liverpool baa adkaatay kulankan 7 Madrid baa adkaatay 11 jeer 3 ciyaar ugu dambeeyay mar Liverpool baa kulanka ugu dambeeyay ciyaarey adkaatay Real labadii ciyaar ka horeeyay inuu adkaatay waxa weeyaan Real Madrid iyo Liverpool 12 jeer bay tartanka Yurub hore ugu kulmeen inkastoo Liverpool 3 ciyaar ugu horeeyay badinayeen 81 ilaa 2009kii laakiin wixii inta ka dambeeyay Liverpool ciyaartan waa laga wareegay guulaheeda oo Liverpool kaliya waxay badisay hal ciyaarood 9kii ciyaar soo dhaaf Madrid la ciyaareen 7 jeerna dhagaha laga garaacay midda kale kulankan waxa weeyaan waa kulanka ugu badan ee isku aadka Champions League mar walba la arkaa waa markii sideedad ay habeenka ciyaarayaan Liverpool iyo Madrid tartanka Champions League tan iyo 2008 jeer bay habeenka kulmaya markuu sideedad 7 jeer ugu dambeeyay shanna waxa adkaaday nimanka Madrid hal bareeja la galay hal Liverpool baa adkaatay
marka sida kulankan isugu waanay labadan kooxood iyana waxa isugu waalan in badan oo aad u ciyaara nimanka la yiraahdo Real Madrid iyo Man City oo 10 jeer muddadaas kulmay sidoo kale PSG iyo Bayern Munich ba ina 9 jeer iyana kulmay mid kale dabeecadda hada Madrid ku socoto waa dabeecad ay tartankan ku qaadi jireen marka sidan oo kale la arko caawa hal aragtaan Madrid oo kulankeeda afraad seasonkan Champions League badinaysa iyo aamin walaal sanadkan law umba Madrid ama semifinalka Champions League jirta ama all the way koobka bay qaadaan Madrid saxda ciyaar seasonkan uu Champions League badiyeen laba jeer oo kamid ah in afarta ciyaarood ugu horeeyay groupka Champions League ay badiyaan Madrid la arkaa waxay laba jeer oo kamid Madrid koobka way qaadeen waxay 2-2 ilaa 3 ilaa 24 bay ahayd koobka way qaadeen sidoo kale waxay final gaareen 2-11 iyo sidoo kale 2-24 marka dabeecadaha Madrid markaad aragto iyagoo afarta ciyaar ugu horeeya Champions League badinaya laba umbu ama semifinal ay jiraan ama tartanka way qaadi jireen laba way qaadeen tartanka labana semifinal bay yimaadeen marka taasu waa tababaraha kooxda wuxuu sheegay Madrid Arnold inuu ready u yahay ciyaartan oo ciyaari karo walow la leeyahay lagu soo bilaabi doono ninka la yiraahdo Fadi Valverde balse bedel buu ku iman karaa isaga iyo Xavi Alonso iyo Hudson wasna Premier League ka soo ciyaari jiray Sacuudin waxay booqdeen goobtii Diego Jota iyo Andre Silva bay weyneynayeen hatta Arnold oo saaxiibkiis ka soo garab ciyaarayay wuxuu lahaa saaxiib aad baan kugu xiisay halka message na geeyay sidoo kalena wuxuu geeyay PlayStation bahalka lagu ciyaar ya remote controlka PlayStation iyo halka geeyay xitaa maadaama uu aad u jeclaa Diego ciyaarida PlayStation-ka Jota hatta lambarka labaad hadda waa ninka meel loo dhigay 145 ciyaar Liverpool u ciyaaray Premier League FA Cup Liga Cup iyo Community la guuleystay marka saacad ugu dambeeyay ciyaartooyga boga Liverpool hatta waa la soo geliyay in ciyaaryahanada Madrid ay weyneynayeen ninkan Jota Hudson qudis wuxuu sheegay Madrid inuu u doortay inay ahayd riyadiisa maadaama Super League ka soo ciyaari jiray waxaan rabay uu leeyahay inuu ciyaaro kooxda ugu fiican dunida faraxsanahay uu halka kan hadda Madrid imika waxa uu bilaaban doona maalmihii kulamada awayga dhibadeen waxaad weydiisaan Liverpool maalmo tabar wuxuu ka cabaado yiri xaaladdu sidoo kale waxa naga wareerinay yiri ayaantan u toosilaanahay dhammaan kulamadeena away u badin biro kulamada banaanka hadda Real Madrid dhammaan 6 ciyaarood soo socda ilaa laga gaaray 7 December Real Madrid Bernabeu kuma ciyaari doonto away la tumi doona ayaantan oo banaanka ay cid u aadi doonaan marka wala eegayaa siday ugu soo baxsadaan waa ka biishii Bayern Munich baa inuu habeenku ciyaaraya kulankan taariikhdu waxa guul badan Bayern Munich 8 jeer saddexdii ciyaar ugu dambeeyna mar biishii adkaatay mar biishii baa adkaatay mar Bayern baa adkaatay marna Bayern Munich baa adkaatay runtii waa Bayern Munich oo seasonkan ku bilaabashadii ugu fiican abid koox Yurub ah 15 ciyaar ugu horeysay kuwa ay badiyeen inkastoo ay ka hor imaanayna caawa Mendes oo lagu tilmaamayo inuu yahay ciyaaryahanka dambeedka bidix ugu fiican iminka dunida Vetin baa sida qaba xitaa Juventus Sporting baa iyanu ciyaari doona habeenka taariikhda kulankan Juventus baa 2 jeer adkaatay hal kuwan ay hal jeer adkaadeen inta waa ciyaaraha dhacaya Nick Williams waxa uu qabaa isna dhaawac lamida dhaawaca Lamine Yamal waxa la sheegay in uu mari doono qaliin marka kulay Bilbao go'aan bay gaartay Barcelona way cabsanayaan waxay isleeyihiin Lamine ha iska qalina marka waxa weeyaan labadoodu isku xanuunsan bay qabaan meeshan ajarka korkiisa ya ma taqaana caloosha hoosteeda ay labadan xanuunka qabaan labada marka xanuunada noocaas oo kale ciyaaryahanku wuxuu u diidaysaa inuu ordo way u diidaysaa sidoo kale inuu shoot gamno u diidaysaa marka Lamine Yamal barsho waxay leeyihiin bal ninkan ha iska qalin ha lagu sameeyna qalinkood markaan fiiriyo xataa ugu 2 bil umba waa marka hadhow inta dhax bil ka siin lahaydeen oo ninkan oo inta celcelineysaan had inuu 2 bil iska soo leefo wax u dhaanta ma laha ya marka Lamine isna xanuunka buu dareemaya la Saudi maxta ciyaarta ugu dambeeyay markuu ciyaaray wararka qaar waxay sheegayaan xataa Barcelona hadda Saudi meel soo warinayay Barcelona ciyaaraha soo aadan kulamada qaar ay binge gelin doonaan Lamine Yamal hadda kadib wax badan ma arki doonto Lamine Yamal oo ciyaarta lagu soo bilaabayo waxaan sababtan loo sameeyaa xanuunkiisa inuu yaraado ilaa 100% ka gaarayo marka Barcelona waxay isleeyihiin xanuunkan hadii ninkan aad loo ciyaarsiin wuu yaraanaya laakiin xilli ninkan oo la celceliyo lama joogo ciyaaraha aan lagu soo bilaabin baasha yaantan Barcelona halkii markaad fiirsid ish ay u baahan tahay in lagu wada Barcelona kooxu maray ish in lagu wada joogo mugtaad u baahan tahay inaad ciyaartida daawad kooxdaada oo ish ku celinaysa ciyaarta oo markii lagu weeraro ish aad leedahay oo aad islee kalsooni ta kugu jinaad leedahay war caawa hadaad magaalka iska aadaysa Barcelona laanta waa badin kartaa amal yani uma baahna is leedahay jirta hadda bareen uma Barcelona ish u baahan tahay in lagu wado halkooda ma sama
marka Lamin ciyaaraha soo aadan kursi keed ku soo bilaaban doona kulamada qaar laga maarmaan baa la runtii in ninkan ciyaaraha qaar la nasiiyo gadaal uu ka imaan doona marka wax yar uu baa la ciyaarsiin doona ninka ilaa uu fit ka noqonayo oo uu dhaawacan ka soo kabanaya la runtii balse warka qaarna waxay leeyahay xanuunkan wax hadda laga dawoobi kara ma aha oo qaliin hadda cunugaas Bilbao u ciyaara wala qalaya macnaha qaliin buu maraya marka Lamin imaamaha soo aadan kursi keedka wad arki doontaan marka waa ka shudna ma gami karo mana ordi karo in badan way runtii nin kasto habeen aad u roonaa marka waa ka Lamin habeen yani saacad ugu dambeeyay waxa lagu daray kooxda sanadka FIFA waa daa'irka ugu yara taariikhda yaa soo tumisana jir lagu daro kooxda sanadka ee FIFA liiskas waxa saacad ugu dambeeyay laga waayay Harry Kane waa laga waayay sidoo kale Messi iyo Cristiano Ronaldo ina waa laga waayay ciyaartoy badan baa laga waayo laakiin marka laga tago gool haya hatta wuxuu Lamin oo noqday 10 nin ee kale ee positionada kale 11 nin 10 kale marka gool hayo laga reebo ninka codadka ugu badan helay buu ahaa marka Lamin saacad ugu dambeeyay inuu gabadh iska fasaxay oo bulan u soo jeestay daacadii waxay tahay inuu yani uu sameeyo sababtoo ninkan nin caadi ma codadka qof kasta la siiki ugu badnaa buu ahaa isagoo tumisana jir balka war cunuga waa ninka ugu daayira xataa FIFA goorra ka soo mid noqda kooxdeeda ee 11 marka waa ka Barcelona LG way ka badiyeen way inuu cimaamadeen waxa la sheegay saacad markii LG ka badiyeen LG inay ma taqaana runtii ay maqribkii Barcelona meesheeda ay sii joogeen subaxii dambe Barcelona hatta iyaga bogoobtooda ku tababarteen Barcelona yani si ciyaartooyga LG recovery u helaan Barcelona way ka boodsay waxay yiraahdeen isaga tababarta saaka meesha marka way sharfeen baa leeyahay garoonka Barcelona way ku tababarteen Barcelona tababarka ma waxay yiraahdeen idin kale ku tababarta marka aad wanaag bay u sameeyeen baa leeyahay runtii taawata hatta Madrid qudoodo Mastan Tuano ayaa yani illa hadda halkiisa laga yaabay hayo goorta uu garoomada dib ugu soo laaban doono lama oga way yaqaanaan ciyaartooyga Spurs yani marka Chelsea guuldaro ka soo gaarto in saan loogu baashaalo isla toddobaadka hadana maxaa dhacay ma taqaana Kaysedo oo ku guuleystay ugu fiicnaa ciyaarta calaamada Spurs buu ku galay يعني أول مرة كل ده بالدقي ساسو كله بالمر بقى أنت ساس يعني وحكش شيئين عيارته كور بقى أنتوا كدلي مان أوف ذا ماتش كا وجود بالدقي على مدى سبورس مركا يعني سبورس ده مخشيت بالجلسة وجر عنده هذا اللي طمع يا مركا واقع بالمر سعود بواقع يو سألك بنوش خير يابولها توبر حوجم بوخادن إن كان دوام بقرمنا كسول لابن يتاوتها نمر عسبتالي سنواكن ilaa waxa leeyahay wuu ka maqnaanaya ciyaaraha xulka Brazil imika soo aadan ee November ilaa hadda ninkan dhaawac ula dhibaatoonaya kan wax ma tarawayaan wax uu taraya lama arko isbitaal leeyaan wala gabadha ka raysini karo madaxweyne ka ah horyaalka Brazil waxay tiri Neymar markii uu ka iimaanayay Sacuudiga oo Brazil ku soo laabanay waxay tiri ma ana u baahanay tiri ciyaaryahan isbitaal leeyahay kooxda isbitaal oo manaysiin bay tiri oo maalin kasta ka jiifanayo saalada no tiri aniga uma baahanay ciyaaryahan isbitaal leeyahay tiri aniga waxaan u baahnaa qof markasta shaqaysan kara oka 2 sano iyo hal bil ka hor baa ugu dambeysay inuu Brazil u ciyaaro bishan hadana dhaawac ugu maqnaanaya xulka Brazil waxa ugu dambeysay xulka Brazil u ciyaaro 2023 hadda kooxdu hadda aaday Santos maxay ku haystaa 24 kulan ayuu ciyaaray 22 kulan uu ka seegay kulamada uu ciyaaray iyo kulamadu ka maqan yahay waxba isma dhaamaan bal fiiri marka wuxuu taray lama arkan ninka kan Bigford xalay runtii waxa uu يعني موجي إنه ولي قلبي وكهايو كحدي سوري سندران حال عيار سندران عياريين إيو إيفرتون برجع كل ما نيسي قول هيها إيفرتون عنو جيسا وقعندك السوق بصدق وسوحي فنان لو لنا علاه خيبنا إيفرتون خيبنا سندرلانو يعني ولي ما نقول من كحدي على الشاكا ولا اللي يقول كسوري حال بريمير ليج كحدي سندران أسبوع عندنا بنا وحشين إنه أد وقفانين وكهرمانين كحدي سوري أرسنال طب بس أنا هالكاس سوي جو كله يرمتي صاحب بدن بايل هذا كله هاي إلا هذا وان وده حرنا وكله يرمتي مركز أسبوع عندنا شاكا ayaa idin ka hor imaanay runtii laacibkiina hore marka waa ka war ayana sheegaya Manchester hataa uu soo gashay tartanka loogu jiro guway Madrid baa la lahaa Liverpool ku garaacaysa Man United qudooda way doonayaan baa leeyahay runtii ninkan waxa gadam free ku baxaya isla Manchester United waa ka ninkii Anthony habeenay labada gool u dhalay waxay ka dhigan tahay Man United 12 gool uu dhaliyay 96 ciyaarood laakiin uu u dhaliyay Betis 14 gool 35 ciyaarood ka badan goolasha United ka kulmay xitaa war Manchester waa laga raystaa miya war asxaabtay waxaan idin leeyahay nabadgelyo